Bismillahir Rahmanir Rahim. War murtiyad kooban ayaan halkan ka soo gudbinayaa anigoo ah Jaamac Dabarani afayeenka madaxtooyada dawladda Puntland. War murtiyadkuna sidan waay. Shirka iskaashiga dawladaha xubnaha ka ah dawladda federaalka ee Puntland, Hirshabelle iyo Koonfur Galbeed. shir ay isugu yimaadeen madaxweynaha Siciid Cabdullaahi Dani iyo madaxweynaha ku-xigeenka Puntland Axmed Cilmi Cismaan Karaash, madaxweynaha Hirshabelle Maxamed Cabdi Waare iyo madaxweynaha Koonfur Galbeed Cabdicasiis Xasan Maxamed Lafta Gareen oo ayna ka qayb galeen wasiirro ka tirsan saddexda maamul ayaa ka dhacay magaalada Garowe 12 bisha May 2019. shirka oo ay martigelisay Puntland waxa uu qayb ka yahay xoojinta iskaashiga dawladaha xubnaha ka ah dawladda federaalka ah sida uu qabo qodobka 52 ee dastuurka ku-meelgaarka ah ee Soomaaliya. shirkan oo looga wada hadlay iskaashiga dhinacyada federaaleynta dalka, amniga, horumarinta dhaqaalaha, ganacsiga, tayeynta hay'adaha dawladda iyo isweydaarsiga xogaha iyo khibradaha waxa ka soo baxay qodobada soo socda. dawladaha Puntland, Hirshabelle iyo Koonfur Galbeed waxa ka go'an xoojinta midnimada Soomaaliya iyo taabagelinta dawlad federaal ah oo ku dhisan dastuur, cadaalad iyo sareynta sharciga. saddexda maamul waxay ka wada shaqayn doonaan dhamaystirka iyo hirgelinta nidaamka federaaleynta dalka iyagoo iskaashi arrimahaasi kala sameynaya maamulada kale ee dalka iyo dawladda federaalka ah. waxay yeelanayaan saddexdan dawladood iskaashi ballaaran iyadoo la sameynayo guddiyo farsamo oo ka shaqeynaya hirgelinta heshiisyada iskaashi ee dhinacyada federaaleynta, amniga, ganacsiga, horumarinta hay'adaha dawliga ah, iskaashiga arrimaha bini'aadantinimada iyo xalka waara ee barakacayaasha. waxaa la isla gartay in la iska kaashado guud ahaan amniga, gaar ahaan la dagaalanka argagixisada iyo isweydaarsiga xogta iyo dambiilayaasha. Puntland waxay diyaar u tahay inay gacan ka geysato khibrad iyo dhaqaaleba dhamaystirka iyo tayeynta hay'adaha dawladeed ee maamulada. wuxuu shirku taageerayaa warmurtiyeedkii ka soo baxay golaha horumarinta qaranka ee wasiirada qorshaynta dawladda federaalka ah iyo dawladaha xubnaha ka ah kaasi oo ku soo idlaaday 7 May 2019 magaalada Garowe. ugu dambeyn qodobka 7 shirku wuxuu taageeray warmurtiyeedkii iskaashiga wasaaradaha maaliyadaha ee xubnaha ka ah dawladda federaalka Soomaaliya ee soo baxay 12 May 2019 kaasi oo ay si cad ugaga hor yimaadeen xeerka cashuuraha dalka ee wasiirka maaliyadda dawladda federaalka Soomaaliya uu horgeeyay wada tashi la'aan baarlamaanka dawladda federaalka Soomaaliya. 7 qodob ayuu warmurtiyeedku ka